بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta oo bisha 27 aan ugu soo booqday magaalada Garowe wafdi uu hogaaminayo safiirka dalka UK oo runtii dalka Soomaaliya iyo Puntland ba saaxiib dheer la ah muddo dheer ka soo qayb qaatay horumarka iyo dadaalada loogu jiro dib u kabashada dalka Soomaaliya mashaariic badan oo runtii Puntland wax ku oolan awda waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halka ku yeelanay kulan cabaar qaatay oo nagu hadalnay dhinacyada siyaasadda amniga iyo horumarinta intaba waxyaabihii aan ka wada hadalnay runtii waxyaabo badan oo wax ku ool ahayd iyo dib u manacsi wixii soo qabsoomay iyo sidii loo amba qaadi lahaa marxaladda soo socota sidoo kale waxaa wafdiga ku weheliyay hay-adda u qaabilsan horumarinta dalka UK DFID madaxdeeda runtiina waxaan rajaynaynaa kulamo kaleeto muddada ayna la joogaan inaan sii qaadano oo hoos loogu guri doono sidii wax wada qabsiga Puntland iyo taageeradooda u ahaan lahayd mid miro dhasha waxaan mar labaad iyo saacad kusoo dhaweynayaa safiirka oo runtii fursadan aan u helnay fursad fiican ay tahay waad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa safiirkuna inuu markiisa hadalka qaadan doono. President, thank you first of all for your warm and generous welcome. This is my first visit to Puntland, this beautiful and ancient part of the country. mahadsanid madaxweyne tani waa booqashadeedii ugu horeysay ee aan Puntland ku imaado. Puntland ahamiyad gooni ah ayay noo leedahay. waxaan ka wadnaa mashaariic isugu jira mid lagu horumarinayo habnololeedka iyo taageero aan ku xoojinayna dhanka amniga. maanta waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha 4 qodob oo ay ugu horeyso inaan gacan ka geysano abaaraha daran ee xilligan ka jira deegaanada Puntland. tan labaad waa horumarinta dhaqaalaha. waxaan eegi doonaa ka qayb qaadashada dhismaha iyo ballaarinta dekedda Boosaaso iyo sidoo kale horumarinta kalluumaysiga. qodobka saddexaad waa amniga oo aan ku dadaalayno sidii aan taageero uga geysan lahayn gaar ahaan dagaalka kooxaha Daesh iyo Al-Shabaab. iyo qodobka afraad oo ah horumarinta siyaasadda dalka oo ah sidii madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyadu ay uga wada shaqayn lahaayeen danaha qaranka. Thank you very much for your warm welcome. Thank you to your ministers for agreeing to be part of a round table with us today. I am delighted to be here in Puntland and hope to have the opportunity to come back here many times in future.